السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل أيوه مقال عصب. هل كان حرا إن كسو قد بيو دعذ الله يابلي وكد علي إجمدا وبري. runtii intaan dhacdo u gelin ka hor waxaan rabaa inaan dhowr qodob ragga oo guursanayo oo carafdoonka ah inaan u sheego marka hore. runtii gabadh waxaad ku guursanaysay wuu kuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qodobo lagu cadeeyay aan lagu qarin ayaa lagu sheekeeyay dumarka inaad ku guursatid. qodobadaas hal qodob ayuu rasuulka calayhi salaam uu culays saaray وآد وقعل عليي سد ودورت قضب كاس وكما ومحي هرت قبل وحلنا كدورو قروح قضب كلوحوها نصب معنا مركي الوضع ماهن خبيل ماهن يا جودا نصبيد علشان مال لون راعدو ضد حوجها وعلماء أما ضد وناكسن أخير كل جتهم ما إني كسوجد جوده قروح نقول شيء نصبت نقول شيء جوده إني تهاي قف مع الخبانة وأذيك تنتظر كحركة سمعنا أما وحكو خبان كرتا أما نلاش هذا وكافين كرتا أما نلاش هذا بروبلم كوهن مال وشيء رسولك عليه السلام إن لو قدرت جوده وحكى له شيء إن لو قدرت الدين جوده in lagu doorto diinteeda inay tahay qof diinta islaamka in badan ka taqaana ku dhaqankeeda iyo aqoon ahaan u taqaana. marka rasuulku wuxuu culays saaray qodobku uu culays ka saaray waxay tahay diinta gabadha in diin lagu guursado ama diin lagu doorto. marka raggan iska guursanaya gabadha iyadoon xaaladeeda ogeyn xitaa xayaatada aan garanayn shanta tiire islaam lixda tiire iimaan aan waxba ka garanayn ay iska guursanayaan kadibna waxay doonayaan gabar wanaagsan oo u dhaqanta oo xushmaysa oo xaq dhoorta inay u noqoto midaasna macquul maaha. gabar mar haddaysan diinta xitaa boqolkiiba 50 aysan ka garanayn gabadhaas inaad guursatid adina kuma wanaagsana carruurta ay ku dhalaysana uma wanaagsana xitaa reerka aad dhexgelinaysid familka ila noolaanaysa uma wanaagsana waayo ma taqaana xaq iyo xuquuqda ay ku leeyihiin ma taqaana adiga xishmada ku leedahay ma taqaana awlaadaada xishmada iyo dhaqanka ay ku leeyihiin qof jaahil ah inaad guurstid mar walba waxa ka garoon gawar faqri ah laakiin diin taqaano inaad guurstid. dhacdadan maanta waxay ku tusaysaa gabadha haddaysan diinta wax ka garanayn in wax walba ay u bannaan tahay iska samaynayso calaashaan diin ahaan ma fahansana dambiga ka soo gaaray. gabar iyo wiil ayaa isguursaday muddo ay isqabeen intaasoo muddo ah. runtii gabadha marka hore wuxuu ku guursaday inay tahay gabar bulsho ku dhaqan ah dadka ku dhex jirta aan kala garanayn dadkii dembi u ah inay dhex gasho inay dadkii dembi u ahayn inay dhex gasho. gabadha ida muuqata sawirkeeda ishaas gaduudan aa aragtaan dhibaatadaas iyo dhibaato kaloo qarsanba waxa u geystay ninkeeda. markaad aragtid ama dadka Soomaalida dhaqankooda waxay u badan yihiin gabar nin dharbaaxaya markaad ay arkaan waxay ku leeyihiin maskiinta u dharbaaxaya wax dambi ay gashay ma jirto iyagoon xogta iyo xanaaqa dharbaaxda ka keentay isan ogeyn. laakiin markay arkaan gabar nin dharbaaxayso waxay ku leeyihiin asiga ka khaldan waajibaadkiisa ay marsiisay. taasna waa cadaalad daro waayo adiga dhabta iyo xaqiiqada ma ogid maahan inaad iska xukuntid. sidaan am dhacdadan markay ka dhacdo waa bari waraysi badan ayaan la sameeyay xiriiro badan ayaan la sameeyay xogta rasmiga ah ayaan idin sidaa. gabadhan iyo wiilkan muddo isqabeen wiilka boqolkiiba 90 waa nin degan si aniga aan qisadan ka garanayo ama aan ka dareemayo waa nin aad iyo aad u degan. gabadhana waxay ka faa'iideysatay deganaantiisa waxay aragtay inuusan kululeen sidaas aawadeeda waxay doontay inay ku dhaqanto ayay go'aan ku gaadhay ama ay go'aansatay. waxaa dhacday gabadhii in badan ayuu u digay wuxuuna kaga digay inay tahay qof marwa ah oo ragga aysan dhaxgali karin ajaanibka ah ay la kaftami karin aysan la qosli karin
la hadli karin hadal daruuriyaad ah maahane inay wax kala iibsanayaan inay ganacsi u socoto wax soo iibsanaysa maahane ragga ajnabiga inaysan la kaftami karin la khusli karin waqti la qaadan karin la istaagi karin daqiiqad ba ha noqotee xitaa gurigeeda bilaadan aysan ugu soo bixi karin diintii islaamka ayaa xukmisay waxaan anaga gacanteena ku sameynayno ama hadda cusub dunida ku cusub maahan marka sidii waayahan dambe waxaa soo batay waxaa lagu leeyahay gabdhaha xornimada ayaa laga qaadayaa xornimada ayaa loo diidayaa diinta islaamka waxaa laga dhigayaa wax qaldan dad ayaana ku shaqeeya ama u xil saaran diinta islaamka inay khalad dadka fahansiiyaan doonaya gabdhaha inay xorriyad siiyaan raggana ay ka dhigaan gabdhaha inay laba qof oo siman oo guriga u siman inay ka dhigaan taasna waa khalad gabadha waxaa la doonayaa in ay gurigeeda oo keliya ku ekaato iyo reerkeeda farfareen iyo cid kale inay farax la gelin amar aysan ninkeeda ka qabanin inay samayn karin almuhim sidaan iyo dhacdaan aan gudagalno gabadhii si u guursaday ilaa iyo dhacdaan hadir dhacday gabadhaas mar walba wuxuu kaga digayay inay dhalinyaro rag hawliba dumar maaha rag ah ay kala haraan oo ay afaarahooda ka baxdo ay gurigeeda dhaqato gurigeeda iyo ninkeeda ay maamulato gabadhii jawaab waxay ugu dhigi jirtay mar waliba in ay dadkan ama raggan asxaab yihiin wax kale aysan ka dhaxayn asxaabteeda yihiin ay la kaftami karto ay la ciyaari karto waqti la qaadan karto taasna waxa keenayso diin la'aanta iyo qoftaanu xaq iyo xuquuqda ninkeeda uu ku leeyahay aysan fahansaneyn muddooyin fara badan ayuu ku celceliyay ayuu u sheegay in arintan ay ku jirto ay qaldan tahay oo qofka qaban asiga uu yahay almuhim gabadhii markuu in muddo u sheegay ugu celceliyay digniinta ugu dambeysay wuxuu siiyay dhacdada markay dhacaysay habeenka ka horeeyay wuxuu dhahay mar kale haddaan kugu arko raggan adigoo la socda ama la quslay la kaftamaya wixii ii ka yimaada adiga ayaa u sooba qoftaana waxay ku bartay ninkan inuusan ficil samaynin uu afka oo kaliya ka hadlayo laakiin ninkan waa nin go'aan gaaray waa nin go'aansaday inuu gabadhan meel iska saaro oo dib dambe aysan qalad u gelin ama uu naftaba kaga jaraba uu kaga siiyo sida qisada kaga muuqata ninkan go'aan wuxuu ku gaaray haddii dib dambe dhacdadan oo kale uu ku arko ama rag iyadoo la kaftamayso ama la taagan ama waqti la qaadanayso inuu kaga siiyo raggana in badan ay dulqaataan sida degdega ay dumarka caradooda u muujiyaan ama xanaaqooda u muujiyaan laakiin mar hadday ay xanaaqaan go'aankood aad ayuu adag yahay gabdhaha Soomaaliyeedna uu digayaa ragga adiga aad isleedahay waa degan yahay waxa doonto ku sameey markuu caroodo waxa laga yaabaa tan gabadhan ku dhacday ka daran inay kugu dhacdo marka waxaa dhacday ninkan xaafadiisa ayuu soo socday xaafadiisa ayuu imaaday wuxuu arkay gabadhii iyo raggii uu kaga digayay oo meel ku wada ciyaarayay bahalkan la dhahay laadhuuga waa laba nooc hadeer waayigii hore ma jirin mobilkii lagu ciyaaro laakiin waxay ciyaarayeen midka safiitada laga sameynayo ee caadi gacanta lagu ciyaarayo ay wada ciyaarayeen rag ajnabi ka ah iyo iyada ninkan markuu arkay aradii ayaa ka tanbadatay raggii way ka kala carareen ayadii ayuu qabtay ilaa ay ka aamusto ay farnuuxiin weys ayuu garaacay go'aankiisu wuxuu ahaa inuu kaga siiyo markuu arkay ilaa iyada waa suuxday markuu arkay inaysan dhaqdhaqaaqin ayuu isaga tagay weliba raggii ayuu u yeeray wuxuu dhahay orod meedkeeda qaato aasta haddii wax idin tarayso waad kala hari weyseen meedkeedana ku darsada meeshii ayuu kaga dhaqaaqay ugu dambeyn raggii ayaa isku soo cararay gabadhii dhulka taalla wuu ku tuntay runtii xanaaqa bini'aadanka mar hadduu qabto control ma leh taada kalena control maba jiri karaba nin xaaskiisa 24 saac rag kale waqti la qaadanayso mar hadduu xanaaqo control ma imaan karo runta haddii la isku sheegayo waad aragteen naag xanaaq dartiisa ninkeeda u gubaysa
ويكون سحنت سومتاس مركي رجع وحناقو قراعنا وخلدين المهم waxaa la soo sheegayaa hadeer gabadhii in isbitaal la carray iyadoo suuxsan ay soo naaxday sawirkan idin muuqdana oo markay soo naaxday kadib marka rag badan iyo dumar badan ayaan arkayay oo baraha bulshada la wareegay ninkaas waa nin cawaana waa nin nacasa naaga badan ayaan arkay gabadha naagaha inta badan waxay la safnaan gabadha ragana far badan waxay la safnaan ninka inkastoo rag ay jiraan gabadha la safnaa laakiin almuhim yaa qaldan gabadha iyo wiilka aniga ahaantayda waxaa qaldan 99% gabadha maxaan u dhahayaa ninkan adiga asiga ayaa ku qaba asiga ayaa xaq u leh asiga ayaa ku guursaday xalaashiisa ayaa tahay rag kale inaad la istaagto iska daayay rag kale inaad istaagto iska daayay wax aad xaq u lahayn albaabka inaad ka soo bixin amar la'aantiis inta ku dhaqanto way yarta hadeer waxay u haystaan in ay tahay caburin gabadha in la amro la dhaho gurigaaga joog gabadha gurigeeda inay joogto diinta islaamka ayaa amraysa wax uu ragga Soomaaliyeed keensaday maaha almuhim ninka asigana wuxuu qaldan yahay 50% ama 40% maxaan u dhahayaa naag adiga aad qabtid oo xalaashaada ah ninka inuu la istaago awood u yeeshay waa daciifnimo adiga laga arko marka hore naagta intaadan meel saareen waxaa muhiim ah rag in meel iska saarto oo beerka kaga istaagto xitaa hadad awoodayso inaad kaga siiso waayo ninka gurigaaga u soo dhacay markaan diinta islaamka nafsadaada iyo maalkaaga qofkii u soo dhacay inaad iska dhicisid ayuu ku amraysaa xaaskaagana waa gurigaaga waa maalkaaga la mid tahay noloshaada la mid tahay marka hore waxaa la rag inuu meel soo saaro xitaa markay arkaan eed haday u yartada baqadan ay ka baqanayeen inay ugu imaan waayaan taada lawaad fursad kale ayaa ku furan gabadhan adigoo qaba haday nin kale inay la istaagto ay go'aan ku gaartay inaad israacisid oo iska fasaxid oo dhahid walaal aniga ma dhaqan karo kuma samri karo akhlaaqiyadkaaga aad bay u liitaan walaal waalidiinteeda inaad u geysid dhahid wad iga fasaxan tahay gabadhiina ma doonayo mana isfahmi karno adigoo ciladaheeda aan sheegin laakiin in isfahmi karin adigoo u sheegay waalidiinteeda ka fasaxi kartaa laakiin almuhim dhacdadan waxay tusaale u noqonaysaa gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo akhlaaqiyadkooda aad u liito iyagoo la qaba nin walba iskala hadla nin walba iskala socda xitaa asigoo ninka dhinac jiifa in ay nin la sheekaystaan ama qoraal ha kula sheekaystaan ama xitaa caadi ah soo waco waxay leeyihiin waa friends ma jirto ilaahay wuxuu ku baneeyay ninka dhinacaaga jiifa asiga ilaahay ku xugmiyay asiga ayaa ku leh waxaa loo baahan yahay in asiga aad ku ekaatid amarkiisna aad qaadatid amarkiis inaad qaadatid oo shantaas salaadood aad dukatid oo dariskana ka amaan helo ay jannadaada ku xiranta marka ninka ragga maahan wax sahlan ilaahay wuxuu siiyay maqaam sare maqaamkaasna waxa ka faa'iideysan karto naagta ilaahay garatiyo dadka ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay naag walba iska guursanine naag diin leh oo ilaahay taqaana guursada si noocan oo kale san idin ku noqonin adigoo qaba isan ku dhihin ninkan waa friendskayga saaxiibkayga waa asxaabtii haddii ay kula qaldan tahay gabadhana commentiga nagu reeb fikirkaaga waa noo muhiim hadduu wiilku kula qaldan yahayna commentiga nagu reeb waa inoo muhiim noona share garay gaarsii naaga far badan oo waxay doona isaga dhaqmaan noona subscribe garay saan u helno saaxiibo fara badan sida adigoo kale wad mahadsan tahay